موتي أقوني يومنا لو موتي قاتو مني مو نسري صورتي قاتو مني مو نسري صورتي الكادي تاريخ أرتقلين ديكتي مريا ألقلين قاتو مني مو نسري صورتي قاتو مني مو نسري صورتي الكادي تاريخ أرتقلين ديكتي مريا ألقلين اليوم الربا مرقلي خرصون واليوم الربا مرقلي خرصون ومشغولينو مبدأ قلبي ومشغولينو مبدأ قلبي واليوم الربا مرقلي قرصون واليوم الربا مرقلي قرصون Fastjol Boris Picciolo who could ask around three times in the bottom of the cup said me to bonus after the other mid as man being angapas intellectual glass be goodness very goodness secondy I greatness the student and commit to the Sibanti village of Fortune mothers and fathers of Fortune. All teachers of the government Khartoum state of Somalia and President Ahmed Ibn Ismail Ahmed Karash. Abdullah Ibn Ghachi Binde and Mohammed Yusuf Chama and the Shell. So I am greeting you the best and most conversation greeting of global after my honorable greeting me my concept in front of you is to say something about in process of committee in process of greeting. So goodbye. And that makes you India to be your settlement. As you know, British Congo was colonized by Italian, British and French, but the member was divided. Somalia belonged to British. British had Ethiopia and Kenya land that belonged to Somalia and still includes colony. But the first troop that for the colony belonged to this city. They and women were born with arrows, dagger, rifle and etc. Rifle is part of guns which can be used at 11 bullets only. Also they traveled on a foot on a horse, but the most troops were riders. In Spain they contacted their British and that caused Saurian society become highest people in the cosmos. Why not here is the first city that was raided by plane in Africa. If you visit Salah, you will see building that colored statue of Tarawih. So goodbye. سألوك شيئا عندنا قارة تابع بركي بكذا هرتي ليالا هالكنا يمادين كذا مركي أي مارتين ظلم يمارتين يحضر هذه يعطى هذه أيوة تسويين هي هالوحيد قتال إلى الدولات وتسيبنا جود كل مال إلى الدولات خاطروا أو التحاول صوت يعني على فلان المرتور على فلان بالاتحاد كان يمر على فلان التحاسية فضل لو سليم أي نصيب هذا أيام كسوق يعني مركبت مكوار هسا بس لو إلهي اللهم هاي إلهي اللهم هاي الحمد لله رب العالمين أنا وحيلها اللهم هجوية عدنا مركارو حلا هاي هذه أبغى بلا سنتين سيد وراك سنين هذا شوكتين سيرة بدل بقالة شوكتين رب العالمين الحمد لله الذي كرم الإنسان من سائر مخلوقات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. aad buu mahadsan yahay saaxiibkay Siciid anu warka loo istaagin waxaan doonayaa oo kaliya inaan ka hadlo qodobadii iyo waxyaabihii ardayda ku saameeyay ama kawskareeyay ama sababay inay ardaydu yimaadaan goobaha ay Khaatumo ugu diyaarisay imtixaanka centralized-ka anigoo soo koobaya kulli mahmaa Soomaaliyeed waxay ahayd dheeriga waxa karka ka keena waa kulaylka
arrintaa darteed waxay noqonaysaa waxaa ardayda ku khasbay inay ka yimaadaan goobihi ay wax ku baranayeen oo halkan keenay war waa asbaabad jiree haddaynu isla yar eegno qodobka koowaad haddii aan ku noqdo aniga oo ka mid ah ardayda gobolka sool wax ka barata heerka secretary sana halkan ka qalin jabiyay sanad dusiyeedkii imtixaanka khaatumo kow waxaan uga nimi meelahaanu dhigan jiray imtixaamada lagu qaadi jiray kow waxa ka ah ashahaado la'aan iyo ashahaado bilaa muctarifa oo ay maamulka sheegta gobolada sool sanaag iyo cayn inay ku masiirsan yihiin yimnimada Soomaaliyeed ay imtixaankoodu shahaadadoodu aanaysan ahayn wax jiro oo shaqaysa oo muctarifa oo xataa haddii aad Djibouti ugu xigta aad tagtid aan laga aqbalayn taasina ay noqotay effort cad oo ilaahay lacag oo istaagay qodobka labaad oo noqonaya tacadiyo lagula kacay waaxda waxbarashada ama bahda waxbarashada ee reer Khaatumo sida macallimiin la xidhay oo la yiri haddii aad sii joogtaan gobolka markii la arkay qaabka iyo iskoolada waxbarashada u soconayaan la yiri haddii aad gobolka sii joogtaan dul joogashatiin arday lagu sameeyay xidhaad iyo kuwa xabada lugaha laga jabiyay kuwa la qasay dhammaan waxbarashada laga soo horjeeday waa qodobka labaad qodobka saddexaad oo noqonaya sixitaan cadaalad la'aan xagga sixitaanka imtixaamaadka oo waxaanu ogsoonahay sanad dugsiyeedkii ugu dambeeyay markii la qaaday wax la yiri gobolada Soomaaliya oo dhan imtixaanka waa laga wada dhashay waa la wada helay oo video way ka sii deynayeen iyagoo ansarkii haysta imtixaanka gobolka Sool aan waxba arag gudoomiye waxbarashada waa la xidhay oo waa lagu eedeeyay beenfal iyo gaboodfal aanu geysan oo la yiri imtixaanka ardayda waa dhashiisay oo imtixaanka Hargeysa Booramo ka soo gudbayay annagoo reer Laascaanood maxaa noo keenay ansariskiis waxa weeyaan oo ku xigtay arday baa jirtay la tartantay gobolada Soomaaliland ay sheeganayeen arday ururka ka socota gabdhaha oo tartantay oo kaalinka koowaad gashay oo la yiri waa sharafta Hargeysa yaana noolan gobolka yar aynu shalay qabsanay baa qaaday aynu ka bedelno samayno inaynu inagu kaalinka koowaad aynu galno iyagana aynu kaalinka labaad gelino taasina waa cadaalad darro dhanka sixitaanka qodobka ugu muhiimsan ee la oran karo waa maxay haytay waxa dhaho biological assignments ama qodob siyaasadeed waxa weeyaan inay maalintii Khaatumo la aasaasay inaan maanta aan halkan taaganahay innaga wax Soomaaliland noogu jiray ma baysan jirin dhulka iyaga haysta mooyaane maadaama ay annaga noo dhalatay dawladda Khaatumo State taasoo ku guuleysatay inay imtixaan centralized ardayda u diyaariso maanta ay qalinjabintii ay tahay waxaanu annagu farxad aan la soo koobi karin aanu haynaa maamulka ee Khaatumo State oo noo sameeyay oo noo sameeyay imtixaan centralized iyo shahaado muctarifa oo caalamka laga aqoonsan yahay iyo midnimada Soomaaliyeed haddii aan ardaydu halkan ka dheer ayay u gashay xoreynta dalka dagaalkuna wax la yiraahdo waa laba jiidood waa jiida qoriga iyo jiida qalinka annagu haddaan nahay ardayda reer Khaatumo jiida qalinka waa taaganahay waanu ka soo baxnay maantana markaatino ah oo waliba leeyahay kordhiya intaas oo kaliya maaha baad waayo marka ugu horeysa ardayda macal qabashadeeda iyo fadhiisinteeda iyo dejinteeda baad ayaa iska lahayd oo lagu soo gaaray waxa weeye marka labaad ragga isa soo xilqaamay oo maxaan ku yiraahdaayay u soo baxay inay hoggaanka qabtaan cidii waxaysana u gargaaraan lana qabtaan hawsha ilaa cidina ma wadi karto haddaan la isla qabane oo gudida qaban qaabada ah iyo inta ay matalayaan ba mahadnaq ballaaran ayaan u jeedinaya ardayda iyaga qudooda waxaan leeyahay horta waxaad tihiin mujaahidiin waxa ku jihaadeen oo mujaahid ku noqoteen inaad barakacdaan maxaan ku dhahdaayay u adkaysateen oo xorriyad ka doorateen waxa kaloo u adkaysateen manhaj aydan dhigan iyo macallin aydan casharkiisa qaadan ardayda u adkaysatay inay gasho imtixaankiisa maxaan ku dhahdaayay waxaan malaynayaa mujaahidnimo qaybta ay ku leeyihiin way ka qaateen aad iyo aad ayaan ardaydaana ugu mahadnaqayaa uguna hambaliyeynayaa dhammaanna ugu dambayntii waxaan u mahadnaqayaa bulshada reer Xudun oo qaybo kala duwana oo maxaan ku yiraahdaayay dee maanta iyo maalin kale oo badan ba aanu aragnay iyagoo na garab taagan waxaan leeyahay inta aan idinka tabareynana soo kordhiya oo maxaan ku yiraahdaayay wanaag un bay dhashaa
halkan waynaga maanta isugu dhimi waxaynuna isugu nimi midhadhalka hawshii loo adkaystay waxaan kaloo u mahadnaqayaa bahda waxbarashada oo maxaan ku dhahdaayay degmada hawl weyn ka haysay oo maxaan ku dhahdaayay ardayda qabashadeeda iskuul la siin